ما أنا واحد قصة أساسا يقول يعني قاري ضمير عن لها يا قاري عندما يلا يقمري ضمير كذا مو بختي قررتني ما يقبر بس هذه لا يقول لفتناقا كابتناقا waxaan ka xasuustaa ma sha Allah waa sanad fiican irir samaal ba hal naqday ma sha Allah magacayga maxamed xasan jaamac maxamedow waxa kugu soo dhaweeyay ku magac dheer ma hubsade haye ma hubsada waxa ku weydiinaya 2023 oo maanta ay ka soo wareegtay maxaad ku xasuusataa waxaan ku xasuustaa xasuusuhu way badan yihiin laakiin dhowr qodob baan ka sheegi haye Somaliland iyo Khaatuma dagaal wada galo waxba baallaha iga yaacay baa ka dhacday gooja cadde taa waan xasuustaa waxaan xasuustaa oo kale riti leeyahay ilmo baraar u laqay ritiha nool oo intii lugaha laga xidhay leeyahay ilmo baraar u laqay ilmihii baraarka laga soo bixinayo oo taana waan ka qisadaana waan xagee ka dhacday bal dadku sheeg goolada dhaxay ka dhacday Soomaaliya meel ay ahayd baan ka warramin hadda haye maxaa kale labada qodob kale waan xasuustaa anigu dhanka Soomaaliya maxaa ka xasuustaa dhanka Soomaaliya waxaan ka xasuustaa madaxda Soomaaliya kuwa kamid ah yaa waxay dhaheen uu dhintay uu baxsaday wax saas oo lagu xasuusta sanadkan waxa kale ku jira nin madaxda Soomaaliya kamid ah intuu Carabi baan ku hadlay yu wildaanana ka dhamaan waay waxyaalahaas ka xasuustaa maxaa adiga khaas ahaan adiga ka xasuusataa 2020 ma aniga wax qiso asaas ay ma dhicin gaari dameer aan lahaa yaa gaari عندما يلا يقمري dameer kina uu baqtiyay قررتني ما يقبر بس marka taas adigana ku taas ay ugu dhacday anigana marka sanadka kuugu fiicnaa miyo ahaan sanadka kuugu xumaa wallahi sanadku mid walba waa sanad ilaahay laakiin qisooyinkaas ay soo maray aniga dunidana wax saas oo kala fara badan baa ka dhacay markood waxaan ku xasuustaa qolyahan is haynay colaadu naga dhaxaysay inay Soomaalinimadii ka carareen oo Soomaalinimadii qolyal wax ku beereen Oromo leftinaga waginaga ku beereen waxaan kala ku xasuustaa dagaal ka dhacay meesha gooja cadde oo la magac baxay dagaalka ku dhibcay marka wuxuu ahaa sanad saameyntiisa ugu leeyahay waxa kamid ahaa ku dhibcay kamid ahaa waxa kamid ahaa kullis ka habe marka wax saameyn badan buu lahaa iyo ereyo badan baa baxay sanadka okay adiga shakhsi ahaan maxaa kuugu saameyn ma sanadka kuugu fiicnaa buu ahaa mise aniga sanadkan sanad wuxuu ahaa labada marxaladood ay siman yihiin maalina wuxuu ahaa sanad wuxuu ahaa murugadiisa wata oo qof ehelkii aad waayaysid qof maxaa la yiraahdaa qaraabadii aad waayaysid dhan wuxuu ahaa maxaa dad badan oo ehela ay ku tageen qaar ku dhaawacmeen ku barakaceen dhan kale marka laga eego dhan wuxuu noo ahaa guulo badan aanu ka gaarnay guulo badan inoo soo hooyeen kamid ayaa barakacay okay waxaan weydiinaa dhanka Soomaaliya maxaa ka xasuustaa iyada dhanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo kale ee sanadkii 2023 ga xasuus waxba ka xasuustay ma jiraan wallahi Soomaaliya wax badan oo saas kama xasuusto xaggaas ku mashquulsan anigu iyo mashquulsan marka anaga xasuusnaa weydii hay madaalis anaga xasuusnaa weydii sanadkii 2023 maxaa ku xasuusataa sanadkii 2023 Soomaa maxaad ku xasuustaa adigu hay soo dhawrine war miyuu iska yeelaya war adigu maxaad garanaysaa maxaad ku xasuusataa adigu ma xasuusataa sanadkii 2023 goorma dhamaadayna maanta kow la joogaa sanadkii 2023 maxaa kuugu xasuus badnaa waxaa igu xasuus badnaa ninkan ka fiirinaysa ma ninka kuugu xasuus badnaa dameer baa ka dhintay dameer baa ka dhintay dameer baa iga baqtiyay moogta dameer baa ka baqtiyay 2023 sanadkii 2023 anigu waxyaabahan ka xasuustay waxa magaalada aan joognay ee Nairobi horta waa laga tahriibay aad baa looga tahriibay adduunka la kala galay xagee loo tahriibina aniga waxa laga soo celiyay Laatiinka adaa lagu soo celiyay haye jacaylkaygii baa hirgalay oo deewaaniga ku fadhiistay alxamdulillah waaniga liibaanay sanad wuxuu ahaaba gebigiisa wax xasuus meerana haddii ilaahay ku samagoliya sanad dagaal buu ahaa sanad daad buu ahaa waa kii daadku ina qaaday ee daadka faraha badan Soomaaliya ka dhaceen waa kii waqooyiga waxa ka dhacay maxaa ka dhacay horta aan ku bilaabay ee Soomaaliya waa kii Xasan Sheekh shakaashay gacanta shakaashay ee dagaalka la galay shabaab waa kii dalkii intii badneed xoreeyay haddii ilaahay ku samagoliya Xamse waa kii Falastiin u hiiliyay cambaareeyay Yuhuudda waa sanadku Yuhuudda aad u cambaareeyay dagaalkii Yuhuud iyo Falastiin ee uu ku soo cambaxay ninka la yiraahdo Xamse siyaasi kale oo ka hadlay ma jiro adduunka saa ku soo cambaxay saa ku soo cambaxay
haddii ilaah ku samagalo waxaan ku xasuustaa oo kale ninkii xamse ah meyd baa baxsaday fakaday naamxii meyd baa baxsaday waa la qabtay wuu fakaday wuu baxsaday wax saas oo dadku fahmi waayeen ilaa hadda anu ma fahminba taana waan xasuustaa haddii ilaah ku samagalo waxaan xasuustaa geeridii qoyareeda gabadha Khadiija Allahu naxariisto waan xasuustaa Soomaaliya inta ka dhacay inaha Soomaaliya ka dhacay Somaliland waxaan ka xasuustaa dagaalka gala gooja cadde maraaga qalas dhale qori lugud kullis laftinaga kabtinaga nimanka hormada hay'adda tagayd meesha Hargeysa intay tageen yireen isku reer baan nahay kuwaana waxay ahayd wax la xasuusta sanadka sanad la yaab loo ahaa fiima quuce qaran ninkii ahaa Suldaan Hooley iyo ciidanka hogaaminayay Suldaan Hooley iyo maxaan ku dhahay Irri Soomaali barnaamijka wadeeda Hargeysa geeyay war sanad wada xasuus waa sanadkaas adiga dhankaaga maxaa kugu xasuus badnaa anigu de waaniga aroos galay fiican buu ahaa sanad iga fiicnaa ma jirin waanigi tahriibay waanigi soo noqday waaniga aroos galay waaniga cadaaday xaydha keenay waadiga yarkaaya waanaga isweyne inaga isweyne wax kale oo aad ku xasuusatay intaas un bad ku sanad wada xasuus waa Soomaaliya daadkii qaaday daadkii Soomaaliya qaab bundooyinka faraha badnaa ee go'ay buur dhubo qarsoontay oo biyo qariyeen naamiyad iskeel yeelaysaa sanad wada xasuus oo ahaaba sanadkaas marka sanadkaas wuxuu sanadku ugu xasuus sanadkii ugu xasuuska badneed ba sanadkan wax badan ka xasuusta weeye wallaah aad baad mahadsantahay adiga laftaadu waad mahadsantahay magacaydu waa Yuusuf Saaq Macallim Yuusuf Kaaka Yuusuf oo soo dhaweynaya sanadkii 23 tagay oo maanta kaliya ka soo wareegtay maxaa ku xasuusataa sanadka 2023 oo tagay waxaan ka xasuustaa maasha Allah waa sanad fiican irir samaal ba hal naqday maasha Allah irir samaal hal naqday ha kulligooda isfahmeen tii labaadna dal xuray wadanku xureeyay wadanka Soomaaliya maasha Allah madaxweynaha Soomaaliya ha marka walaashay saas baan ka xasuustaa madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka xasuusataa isaga wuxuu qabtay oo kale waxyaabo asaa qabtay wadan sanadka 2023 wadanku xureeyay cidii oo al-shabaab wadanka ka saaray maasha Allah waa madaxweynaha koowaad oo annaka aragnay abid oo dagaalka furunta koowaad ka gala dagaalka markaad waxay kamid tahay waxyaabaha sanadka ka tagay lagu xasuusto nacam waa adiga dhankaaga maxaa sanadka muxuu ku ahaa maasha Allah anigu ii fiicnaay sanadkii 2023 kii ka fiican Ilaahay iga dhiga kana maasha Allah wuu ii fiicnaay adaa mudan aan dhawahay magacayga waxa la Amiin Dheere Amiin oo ku soo dhaweynaya 2023 maxaa ku xasuusataa aad baan ku salaamayaa aan sidoo kale ku soo dhaweynaya 2023 wax badan baan ka xasuustaa marka dhanka wanaagsan ee fikirka saxda aan ka hadalno dawladda Soomaaliya oo in badan wax badan iska bedeleen deyntii oo la afiyay muxuu ahaa wareysha inta kale maxay hubkii oo la fasaxay inkastoo hubka ka cabsanay inaan isku leeyno waxyaalo badan horumar la gaaray waxyaalaha cajiibka qosolka faniga ka xasuusta kamida buldaanana waxa kamida uu dhintay uu baxsaday laftiin naga iyo daarad naga iyo walaanaga inaha ma oo badan intaas hadda la ku xistaa ma dhamaanayaan waqti dhankaaga ani samaha sanadka kugu fiicnaa ana shakhsiyan ma sanadkan challenge soo lahaa caqabado nafsiyeed oo shakhsiyan gaar u lahaa sida dadka caadi oo kale waxaan rajaynayaa caqabadihii soo maray inaan casharo badan ka barto sanadkanna aan si fiican u wajaho wax badan oo naftayda iyo dhaqankayga iyo ficilkayga waan bedelay waxaan rajaynayaa inaan horumar ka gaaro sanadkan insha Allah taala aad ma sanadka sanad wanaagsan adiga ma sanad wanaagsan